أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسيت تصأة نغلا سعطان وكسونو كيفي وحان برنامج كينا سوق قادم دونا فايدوينka daawada folic acid-ka u leedahay maamada uurka leh qaado daawada hadaad uur leedahay si aad u badbaadiso ubadka aad sido. faa'iidada daawada folic acid u leedahay maamada uurka leh waxaa kamid ah maamo kasta uur leh waxaa wanaagsan in ay qaadato daawada folic acid-ka. qaadashada folic acid ka hor uurka iyo xilliga uurka waxa ay maamada ka caawin kartaa in ay kaga hortagto in ay dhibaato gaarto xangulaha iyo maskaxda ilmaha uurka ku jira. waa maxay folic acid ama what's folic acid? waa daawo asalkeeda laga sameeyo nooc ka mid ah vitamin B. daawada folic acid-ka waxay door muhiim ah ka ciyaartaa soo saarista unugyada cadcad ee dhiigga waxayna ka qayb qaadataa koriinka uurjiifka gaar ahaan qeybaha maskaxda iyo xangulaha. sidoo kale waxaa jira cunooyin laga helo folic acid waxaana ka mid ah cunooyinka qubka leh khudaarta cagaaran iyo noocyada kala duwan ee liinta. maamada uurka leh haddii aysan qaadan in ku filan oo folic acid waxaa ilmaha uurka ku jira ama ku dhici kara in tubooyin neerfayaasha xirmi waayaan gaar ahaan xangulaha iyo laf-dhabarta neerfaha maro iyo maskaxda qayb ka mid ah si fiican u kobcin. waxaana dhalan kara laba arrin oo kala ah: kow, in xangulaha ilmaha xirmi waayaan; lambar labo, iyo in maskaxda ilmaha uurka ku jira aanan samaynin koriin fiican una dhashaan iyagoo qayb ka mid ah maskaxda maqan tahay. ilmaha ku dhasha qayb ka mid ah maskaxda maqan inta badan marka ay dhashaan waxaa la arkaa in ay dhintaan, halka kuwa ku dhasha tubooyin xangulaha furan markay dhashaan noqdaan kuwo naafo ah. intaas oo dhibaato ah waxaad kaga hortagi kartaa inaad qaadato daawada folic acid marka uur leedahay, waxaana faa'iido u tahay ubadka dhalan doono. sidoo kale faa'iidada ubadka dhalan doono daawada folic acid u leedahay waxaa ka mid ah waxay ka hortagtaa ilmaha in ay ku dhashaan faruurka ama waxaa u taqaanay Soomaalida furuuray. sidoo kale lambar labo waxay ka hortagtaa dhiciska ilmaha. sidoo kale lambar saddex waxay ka hortagtaa foosha imaado iyadoo waqtigeeda la gaarin. sidoo kale faa'iidooyinka maamada uurka leh u leedahay daawada folic acid waxaa ka mid ah waxay ka hortagtaa cudurrada ku dhaca wadnaha. sidoo kale lambar labo waxay ka hortagtaa cudurrada stroke. sidoo kale lambar saddex waxay ka hortagtaa dhibaatooyinka yimaada xilliga uurka sida dhiigkarka yimaada xilliga uurka. sidoo kale lambar afar waxay ka hortagtaa noocyada ka mid ah kansarka ku dhaca dumarka. fadlan hooyooyinka Soomaaliyeed, walaal Ismaaciil Xaaji, fadlan kanaalka Sunu TV, fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe, share, comment. haddii aad horey u subscribe saartay gabna furteen fadlan share commentiga ama like noo saar. asxaabta aad u mahadsantihiin dhammaantiin. waxaa idin leenahay daawasho wacan.